الرحمن الرحيم أنا محمد أو علي دان مدو محمد أو علي محمود محاد راجي دان مدو كمر عدير وحنا سو قارتي مالمهان إن دول أنك قدني كبر ليسكو هستو سينب حسين جمعالي دول كان هدان إذا كجا ورمو ودول أن لين هاي لحال أبهن أهاي المهن أنت هذا بدن أسي كل شيء درسوا ليه dadka sheegaya waxa la sheegayo badanood waxba kama jiraan dhulkaanu cabir ma gelin waligiis hadda ka bacdi adduunyada lama yaqaan say naqa doonto laakiin hadda ka hor ma gelin wuxuu lahay dhaxal koob waraaq aanu sameynay gabadhaasaan ka gadnay qofkii ku haysata waxaan u qabnaa inay ka dulmanta saas waay dhulka xaalkiisu wuxuu ku yaalaa ex control haddii la dhaafo sarkuusta markaad joogto ayaa waxaa loo leexanayaa dhinaca bidix sara kuuskuusanoo yaryaroo laba ahaa ku dhex yaalla cido badanaa dhinacaha ka saaran derisku waa yaqaaniin qaraabadu waa taqaanaa intaasaan ka ognahaa annaga wax intaas ka baxsan oo dheeriyuhu ma jiro waxaan caddaynaynaa dhulkaas inuuban cabir gelin ayagaa noo sheegay cidda ku haysata ayagaa yaqaan anagu ma naqaan cidda ku haysata cidan anagu aragna maaha raxiim aniga waxaa la yidhaahdaa maxamuud xasan maxamuud dhaxaltooyada ka mid maahi laakiin deris ayaan la ahaa dhulkan hadda aan dhex taagannahay waxaa iska lahay markiisii hore nin la dhihi jiray allah u naxariistee oo cali daan madow intii aan ogeyn asagu intuu noolaay waxba ma sharciyeysan wax ma cabiran asagoo goofow ku dhex noolaay markii uu dhintay ayaa dhaxaltooyadiisii waxay ka iibsadeen gabadhaas la yidhaahdo saynab xuseen jimcaale sida aan ka warqabno wax hore oo asagu ula heshiiyey ama uu u sharciyeystay ama uu ka iibsaday annagu ma ogin naqshado goofaf kale ka yimid haddii lagu soo fidiyeyna wax sharciya ma aha wixii saxiixa oo cali daan madow qofka heesta asagoo ilaa wixii saxuro u ahay waa iibsan karay waa la imaan karaa cid aan asagii la heshiin laakiin waxay ku timaad waa dulmi waxaan marka codsanaynaa oo gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ka codsanaynaa in ay iska hubiyaan oo ay xaqiiqada baaraan haddii loo sheeko xumeeyo ayaguna waa laga yaabaa inay mas'alo xumeeyaan balse inay iska hubiyaan dhulkaas waxaa iska lahay oon ku celcelinaynaa oo cali daan madow dhaxaltooyadiisii dhaxalkoobay samayseen gabadhaasayna ka gateen wixii markaa naqshad goof kale ka timid oo aan cali lagala heshiin oon dhaxaltooyada lagala heshiin haddii ay timaado waa ku qaldan tahay marka waxaan ku celcelinaa maamulka gobolka banaadir asagoo kolley khalad u bareeri maa laakiin haddii loo sheeko xumeeyo asna waa masalo xumay karaa ha iska hubiyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga haddii laba qof wax isku haysta qofkii xaqa lahay qofkii aan lahayn oo ka afbadiyo waa laga yaabaa inuu qofkii qaldanaa u xukumo laakiin waxaan u xukumay cad naara maamulka gobolka banaadir inuu cad naara xukumin oo iska xaqiijiyo ayaa laga rabaa intaasaa laga codsanayaa annaguna waxaan caddaynaynaa goofkaas in ay gabadhaas hadda leedahay ay dhaxaltooyadeed ka iibsatay annaguna goofka ku dheganaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim aniga oo xasan cali iwarow waxaan halkan ka caddaynayaa dhulkan oo cali daan madow in la yidhaahaa iskale allah u naxariisto waxaa laga gatay dhaxaltooyadiisii ilmihii uu dhalay waxaa ka gatay shariifo xuseen jimcaale saynab xuseen jimcaale ayaa ka iibsatay saynab xuseen jimcaale waxaa noola sheegay in ninku haysto dhahaayo dhulkan dukumiintigan anaa iskale dukumiinti 86dii inuu la rooraya noola sheegay waa caqabado jiro oo inta badanna kusoo noqnoqdo xagga goofta waxaa jirto annaga oo markii uu cali laga iibsanayay annagoo badan oo deegaan ah ayaa maxkamadda nala horgeeyey kutub ayaa nala ku geliyey in ay leedahay ciddii iska lahayd in aan kutub u galno annagu dhulka ma lihin ma qaadanayn dirisnimo islaamnimaan u dhaaranay kutubaan u galnay waxaa la sheegay in xaqiiqdii oo dhan la hareer maray oo macnaha masale xumayn ay dhacday gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa arrintaas inuu dib u eego isagoo mahadsan inuu dib u eego la tixgeliyo heshiiska ahay 2084 wareegtadii ka soo baxday madaxweynihii dalka Soomaaliya
maxamed siyaad barre oo aheeday goof ninka iska leh lagala heshiiyo wareegtadaas la tixgeliyo haddii la hareer mara waxaa imaanaya dilalka xilligaas yimideen oo kalifa wareegtada inay timaado dilalka ayaa dib u soo noqonayo saa maxaa jira qof bili-aadana oo hantideeda xoog looga xukuntay iyo dulun waxay bidaysaa geeriyay bidaysaa marka mana wanaagsana waxaas waxyaabaha kalifaayo waxaa hay-adaha cadaaladda ku shaqale maamulka gobolka banaadir waxaan 100% ka codsanaynaa arrimahaas inay dib u eegis dheer ay ku sameeyaan ayaan ka codsanaynaa mar labaad ka codsanaynaa mar saddexaad ka codsanaynaa si ayan u dhicin dhibaato marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo xasan oo cali maxamuud oo cali daan madow ku magac dheer khaas ahaan waxaan caddaynaynaa dhulkaas inuu aabbahayn uusan iibsanin oo unkoo haddii ilaahay halka soo naga dad waaweyn dadna yar yara ku jiraan yatiina ku jirtaan uu dhintay hadduu dhintana warqad dhaxal koob aan u samaysanay dhaxalkii koobka haddaan u samaysanay waxaan ka gadanay Saynab Xuseen Jimcaale aan ka gadanay haddii ilaahay idmo wax qof unkoon ogeynin abo aabahay cali waraxmada hore u ogeynana hanoogu timaado hanoogu cadayso xanaan haddii ilaahay halkan oo isu kaya keento haddii ilaahay bas rasuulkana sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad hala timaado warqad iyo markaati haddii aad noola timaado ee noo cadayso markaas khaltahan waa ka jawaabina mari ilaahay idmo qof aniga saan qofka gabadhaas u siinay qof aabahay isu ka iibsaday haddii ala jirto maqal iyo muuqaal ha noola timaano anka hore cali dan madow haddan 16 qof oo ka koobanaa haddii ilaahay halkan oo rag iyo haween inta isku jiraan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yiraahdaa Saynab Xuseen Jimcaale oo loo yaqaan Shariif Xuseen Jimcaale waxaan maanta meeshan iskugu imaanay inaan cadeyno dacwada ka socoto hadda maxkamadda gobolka Banaadir kana soo gudubtay gobolka Banaadir qaladaadkii gobolka Banaadir uu sameeyay inaan xusno cadeynana sida ka muuqata dadka meesha joogo oo isugu jira milkiyadii deriski deegaankii intii u saaxiibka ah waxna ka og dhulkan martabadihiisa oo soo maray ilaa iyo bilowgiisii waxaa ka mid ah dadka maanta meeshan ku sugan dad joogay maalintii aan gadanayay sidaan oo kale ma ugu gatay meel loo wada dhan yahay waxaan marsiiyay maxkamad waxaan sameeyay maqal iyo muuqaal waxaan sameeyay dhaxal koob waxaan sameeyay beec maxkamadda wada jir ee waqtigaas oo ku beegnaa 2013 Agoos waxaa dhacday markaas kadib anoo ku kalsoon dhulkaas sidaan u baaray u xaqiijiyay deriskii oo dhan ay ugu maqaati aan waagan gadanayay kalsooni buuxda iga masuulin kalsoonidii aan maalintaas ku gatay stiil waan haystaa waxaa dhacday marka ay heeday taariikhda 2016 Maarso inuu la yiraahdo nin Ibraahim Muuse Abuukar kuna magac dheer Ibraahim Muuse Kadare oo ah injineerkaas oo ah injineerka dayactiray dawladda hoose ee Xamar sida loo fahmo waa injineerkaas markiisii horena ahaa xibin ku dhow Xasan Sheekh asoo ka faa'iideysahay awoodiisa oo haystay dawladda ku dhawaanshaheeda darteed oo meesha wuxuu ku yimid ciidan qof indhaha xiran yihiin xoog ku dhistay laba boos oo kamid ah goofkayga aan maanta dhex taaganahay sida ay idin cadeeyaan marqaatiyadaana milkiyadiisa inay cadaalad tahay xaqna tahay xeer islaam iyo xeer dawli qaanuunkan aan u soo maray markaas ka bacdi waxa dhacday inaan furtay dacwad ay furteen dacwad ayaga igu soo oga aniga wadankan ka maqnaa waxaan ku sugnaa wadanka UK markay dacwadii igu fureen waan imida waan la dacwooday muddo dheer kadib waxaan ku guuleystay alxamdulillah biqudratillah inaan ku guuleystay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir 7 Sebtembar 2016 waxay qaateen racfaanka markay qaateen ay waxay codsadeen in loo gudbiyo dawladda hoose qaybta hubinta dhulalka waana loo diray anna waa aqbalay si loo helo cadaalad waa hoggaamsan sharciga markii gobolka Banaadir la tagay nasiib darro dukumeentiyada la gudbiyay waxay sameeyeen wax aan cadaalad ahayn loona mas'uuliyadoodana aysan ka turjumaynin lana ogaanay maanta bacdaymahaygan inay qaladaad badan igu sameeyeen kuna sameeyeen sidaan aaminsanahay dad badan sababtay taa qaladka la iga galay ma aha mid igu ekaanayo dad wax bartay oo cadeystay inay yihiin aan ka cadeynayo meeshan waxa laga saaray galkayga dacwad
warqadaas oo cadaynaysa waa wareegta ka soo baxday maxamed siyaad barre 17 Sebtembar 17 Juulaay waa bishii 17 1984 oo sheegaysa dhul goofla ah beer daaqsin in lagala heshiiyo qofka iska leh aan la iska cabiran karin ee waxayna ku socotay waqtigaas dawladda hoose oo qaladaad badan intay gashay la isku dilay loo toogtay waxaana kamid ah dadka loo toogtay reer Cambuur family la dhihi jiro Soona Jungle ay ka dhacday markaas halkan uu yimid si loo badbaadiyo dhiigga shacabka madaxweyne maxamed siyaad barre oo xukunkan soo saaray wareegtada ah lama tixgelin waxa iigu xiran warqadda gooflaha heshiiska aan la galay waata waxa iigu xiran sulsaarki buugga waa laga soo fiiri karaa degmada Wadajir maxkamadda Wadajir buuggooda kaydka waa laga heli karaa waana ku jiryaa wuxuu ahaa 2003 bishii Agoost waxaa ku xirnaa warqadda dhaxalkoobka dadka iska lahaa oo ahaa saddex qoys ka koobnaa tiradooda guudna 16 qofood waa soo sameeyay dhaxalkoobkoodii waa ka dhaxalkoobka sulsaaradiis waa haystaa taa waa laga tuuragalkayga si aan la ogaanin dhulkaas cadeymihiisa aan loo helin hadii loo baahdo way ka saareen guddiga khilaafaadkan ku heystaa taas waxaan u gudbiyay xukunkayga maxkamadda gobolka Banaadir ka soo baxay ee ahaa 7 Sebtembar waa gudubsaday kuma jiro lamana tixraacin warqadda ay soo saareen qoraalkooda kama mid ah asaas daraadeed inay tuuraan ama inay hoos galiyeen mid ay ahaataba lama soo xusin waxaan kaloon gudubsaday warqadii lahaanshaha dawladda hoose ee xamar sabarloogooyinkii iyo rashbuutooyinka taas wax yar ay ka soo hadleen ayagoo waliba si qaldan u isticmaalay taa kaliya xuseen ma sheegin inay sax tahay ninka kale wixiisa saxan tan Ibraahin Ali tayada bal inay qaldan tahay inay saxan tahay waxa ku sheegaan ayaga laga rabaa kaydka diiwaankan waa ku jiryaa ee dawladda hoose waa laga heli karaa taariikhdeedana waa 2014 nambarkeedana waa 10,104,083 nambarada way badan yihiin laakiin taasan tusaale u soo qaat markay intaasi dhacday waxay soo saareen guddiga khilaafaadka dhulka waxay soo saareen go'aankooda wuxuu soo baxay warqadayda horta racfaanka waxay timiday 27 Maars 2017 loo soo diray racfaanka markii loo soo diray wuxuu soo baxay go'aankoodii 12 Sebtembar 6 bilood ka bacdi ayay waxay soo saareen go'aan ay leeyihiin waxaa dhulkaani loo lahaanshihiisa cadaynayna Ibraahin Muuse injineer Ibraahin Muuse Abuukar oo wax sax u haysto waxaana ku saxiixan dokumentigaas oo saas la soo qoray dadka soo qoray waxa waaye gudoomiyaha guddiga khilaafaadka Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cabdullaahi Tool Maxamuud Yuusuf Axmed Geesay waxa waaye agaasimaha farsamada sida aan hadda maqlan laftarkiisa kiisas dawladda hoose ah inuu xabsi ku jiro oo qaladaad lagu helay waxay marqaati ka tahay inuu qaladaadka dadka caadiystay raadkooda maalin un la soo heli doono waxaa kamid ah Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Ibraahin ma saxiixin ninkaas magaciisa xusan laakiin ma saxiixin waxaa kaloo kamid ah Maxamuud Cali Maxamed oo loo yaqaano Dhagacad waa ku saxiixan yahay Cabdixakiin Shariif Ibraahin waa ku saxiixan yahay xaawo wardheer Cusmaan shantaas way saxiixada ninkaas ka maqan go'aankoodii waxa loo soo baaskariyay warqadayda markay intaas ay marayso gudoomiyaha howlaha guud Ibraahin Aadan Fiidow mudan Aadan Fiidow ayaa warqadayda loo soo gudbiyay warqadayda markay soo gaartay asagana waxaan u imid anigu waan noqday wadanka waan ka baxay markay dacwadda loo gudbiyay guddiga khilaafaadka muddo dheer aan daba socday xal markaan waaye qof ilmaheeda Yurub ku nool yihiin hawlo badan ka kala daadsan yihiin aniga wadanka waan ka baxay Agost 10 waxaan dib u soo noqday 20 December 2017 ayaan wadanka ku soo noqday 14 December 2017 ayaan waxaan la kulmay nasiib wanaag Ibraahin Fiidow xafiiskiisa markaan la kulmay waxaan u gudubsaday codsi oo ah
cabasho oon leeyahay khaladaada la iga galay dukumentigayga bal dib ha loo hubiyo gudoomiyo xukunka ninkaas loo suubiyo ma waafaqsani ee hal la iigu celiyo guddiga khilaafaadka ama xubin kale xubno kale dhexdhexaad ha loo gudbiyo marka codsigu jeeday wuxuu yiri go'aan intaas oo qofood gaartay seen qalad waa u dhahan ma qof walba waxaan dhahnaa waa la qaldiyan ha la hubiyo waxaan ila gudoomiyaha ku fududaan maxkamadda barraxfaan ka furan qofka markuu qanci waa jaanis u leeyahay qofka muwaadinka ah xaquuqa wadanka ku leeyahay ma ahan markuu qofka qurba joog yahay in dhaxalkiisu guuri ma aha waxaan ka codsanayaa inaad dib u hubaan igu samaysid awoodaada kolley warqad waad qori horaad u diri ama gadaal u celiyo aniga codsigayga hubi intaysan warqadda gacantaada ka bixin wuxuu yiri waxaan la soo tashanayaa bal gudoomiyaha Cabdullaahi Tool laba bari kadib aan kula soo xiriirayaa labada bari horta wali ku jira maanta 15 Maarso 2018 ah labada bari aan ka sugaa taasna waxaan u sheegayaa gudoomiyaha mudane Ibraahim Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaan taas u sheegayaa markaas kadib waxaa dhacay isbedelkii maamul markuu dhacay wuxuu soo saaray go'aan 3 Febraayo 2018 asagoo dhahay waxaan ku waafaqsanahay go'aanka guddiga khilaafaadka una soo gudbiyay xafiiska duqa Muqdisho ee gudoomiye mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso oo soo gudbiyay nasiib wanaag Yariiso uu dadaalay waan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa qofka mas'uulka ah soo dadaalay wax walba ka khaldami karaan wuxuu sameeyay oo magacaabay wakiilka duqa ee arrimaha dhulalka inuu soo hubiyo wixii dukumeenti ah ee yaalay oo dhan loo diray ma aha kayga kaligiis wakiilka duqa wuxuu ku soo xiray warqad uu leeyahay mudane gudoomiye markaan fiiriyay warqadaha labada dacwad ay isku haystaan Ibraahim Muuse Abuukar iyo Seenib Xuseen Jimcaale waxaan ku arkay qaladaad ay kamid yihiin inaan dukumeentigeeda laba soo xusinba dukumeenti milishibi aan ku xiran yahay marka waxaan ka codsanayaa aan soo jeedin lahaa in dukumeentigeeda bal horta la hubiyo milishibi ma ka soo baxay mise la hubiyo ee dib loogu noqdo markuu taas soo jeediyay warqadeedii xafiiska duqa ma soo gaarin ma imaan xafiiska duqa warqadeedii ma soo gaarin dhaxa lagu cunay dhax in lagu cunay ee jiirada ku dhacday qaladaadkaas oo ka dhacay xafiiska agaasimaha duqa oo ka dhacay waan ogaaday markaan maqlay waxaan la hadlay agaasimaha laftarkiisa xafiiska agaasimaha duqa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Cadey ayaan la hadlay waxa yar Cabdullaahi waxa waradi ka maqan cabashadeeda waxaan soo dhaafartay garaal ahaada cabashaan u qortay xafiiska Yariiso oo feelkeyga la ii geliyay cabashadeedan waxaan ku qiyaasayay markuu arko bal inuu cadaaladda hadaadan gaarin xataa ku lagu dhawaan karo inay gaartay kale ayadana ma sheegi karo laakiin markay warqadaas timidan waxaan information ku helay in codsigeygii labaad ee Yariiso u gudbistay gudoomiyaha gobolka Banaadir in laga saaray iyo warqadii xafiiska duqa Muqdisho ee arrimaha khilaafaadka dhulka mudane Xasan Cali Xasan uu soo qoray taariikhda markay ahayd 20 Febraayo 1918 waa laga saaray galka mana gaarin duqa laakiin nasiib wanaag waa taas aniga gacanteeda ku jirta maanta warqadii waa taas cadeyn buuxdan oo haysta warqadaas inaysan xafiiska duqa gaarin daliil inaysan gaarin waxa daliil u ah intaan daliisha gaarin waxa la hadlay markuu igu yiri way ku jirtaa Cabdullaahi waan weydiiyay warqadana laga saaray agaasima Cabdullaahi waxaan dhahay waan warqadaas laga saaray ka waran xalkaas iga hubi wuxuu anaa ka ahooba anaana hayo anaana arkay weynu ku jirtaa yaan been lagu sheegay si aan shakayga igu jiro oo iga baxo waxaan u tagay gudoomiyaha agaasimaha dhulalka Xasan Cali Xasan waxaan ka codsaday warqadiisii in laga saaray oo ii dabagalo si uu soo xaqiijiyo waan ka codsaday oo iga cudur daartay wuxuu iga raali ahaw aw shaqadeedana ma ahan dabagal oo iga diiday xaqna uu u leeyahay qofka asaga iskala go'aankiis laakiin mas'uuliyadiisa waxay faraysaa maamul ahaan aniga ma ogi intay gaarsiisan tahay taas markuu ugu yiraani waan ka tagay waxa soo baxay go'aankii oo duqa Muqdisho go'aankiisa inta uu soo bixin sorry waxa dhacday inuu kiiskayga anagoo dhibana ahaa oo maamulkii iyo qoladan ishaysanaba ay noqdeen dad iswato shuraka ah wada shaqeyn fiican ay dhaxmartay qaabkay doontaba u dhaxmartay laakiin aniga aan noqday kali iskuna dayay inaan la xiriiro gudoomiyaha gobolka Banaadir kuna batay wajigayga xafiiskaas dadka ka shaqeeyay boqolkiiba 70 waa yaqaanaan maanta kaamiradayn iga arki doonaan xafiiska Fiidow saas u taagnaan jiray kan gudoomiyaha albaabkiisa saas u taagnaan jiray
nasiibkayga ma noqon inaan gudoomiyihii la kulmo cabashadeeda ay gaarto waxaan u qoray taleefankiisaan helay text message aan u qoray gudoomiyaha taariikhdan u qoran u sheegaa ha baara textkayga nambarkaygana 32 u dambaysa furahaygana waa 6 ma raba nambarkayga fuul inaan inta ka sheego 10kii bishaan u qoray maarso anoo dhahaayo gudoomiye xaaladahaas jiro u qoraayo waxaa kaloo jira isku daya badan oo aan ka soo sameeyay ingiriiska aniga reer UK ana asagna reer UK linkiyan raadiye si uu martaqaan u gaarto cabashadayda haday inta ka gaaraysan xagga ka soo gaarto way jiraan dad badan oo la soo xiriiray message u soo diray laakiin wax jawaab ah iga ma soo gaarin aniga xaqiisa waxay noqotaba ima soo gaarin waxa dhacay marka iyadoo kiiskayga intaas marayo ayaa waxa saaxadii soo galay xildhibaan Saadiq Cabdikariin xildhibaan Saadiq ayaa soo gal xaalad saaxad kiiskayga wuxuu la kulmay oo u tagay gudoomiyaha asagoo raba inuu ku cadaadiyo ama uu rabo danihiisa marka inuu mataqaana ka fuliyo oo aha warqadii wax walba dhameystirino leenka u salaxan yahay kaliya saxiix ka dhiman yahay inuu saxiix uu mar ku jiido wuuna ku guuleysteen waa sameeyay gudoomiyaha uu sameeyay مثلا marka waxa soo baxa warqadii oo ka soo baxda xafiiska duqa waa taa iyadana waan haystaa oo ku saxiixan yahay injineer waa ka saxiixaysan 10kii September 10kii Maarso 2018 wuu soo saxiixay saxiixiisi marka waxa ka maqan warqadihii protocolkii la xusay waxa ka maqan warqada protocolkeeda uu yahay warqada protocolkeeda uu yahay da'ha ma wa da'ha kale eber 7 kun 124 eber 18 protocolkaas kama mid aha waa warqada ka soo baxday wakiilka arrimaha dhulalka Xasan Cali Xasan kama mid aha protocolkii lama soo qaado warqadan way ka maqan tahay inta kale waa la soo qaatay waxa la soo qaatay maxkamadda racfaanka warqadii ka timid 27 Maarso waa la soo qaatay waa la xusay oo loo soo diray guddiga khilaafaadka warqadii guddiga khilaafaadka oo 12 September 2017 waa la xusay warqadii gudoomiye Fiidow ee soo baxday 3 bisha Febraayo 2018 waa la xusay tana maqana ah sidaasaan maxkamadda loogu gudbiyay waxaan rabaa marka inaan u sheego cadaalad aan sugayno iyo maamulka aan wax ka sugayno saasay hoostooda u qasan tahay qaladaadkaas cadcada jiro qaar badan oo la arki karin way jiraan qaar badan oo la arki karin way jiraan aan aniga ogahay diyaarna aan u ahayn inaan saxaafad u soo bandhigo waxaan xaqiiq lahayn ma fiicna in la sheego itus iyo taabsiyo ku fiicanta adduunyada marka qof eedihayst sidaas daraadeed waxaan rabaa arrimahaas waa qaladkii iga soo gaar gobolka Banaadir waxaan rabaa baaqi yar inaan ku darsado oo aan u gudbihayo maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir anigoo ka codsanayo qaladaadkan la iga galay saxaafad u soo bandhiga cadeymaheedin aan hay lawyer-kaygan u gacanta ku hayo inaysan ku kadsoomin go'aankii ka soo baxay guddiga khilaafka iyo gobolka Banaadir inaysan qaadanin ayaga awoodooda isticmaalaan arkaan qaladaadka ka jiro waxa ay sameynayaan waxaan ka sugayaa tixgelin ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Xasan Cali Khayre iyo dawladiis labada gole ee baarlamaanka kan sare iyo kan dhexe xeer ilaalinta qaranka culamaa u diinka ummadda Soomaaliyeed inta wanaagaysa ma jecel inay naga qabtaan cadaalad darrada wadanka ka jirta ee baahsan ma aha mid kaliya igu dhacday ma aha boqolaal qof ay ku dhacaysaa dad badan oo codkooda gaarsiin karin meeshaan maanta aniga codkayga gaarsiiyay fahmaynina anba awood u lahayn kuwaas hoostiina ku yahay ogaada waxaad saxiixdeen ama gacantiina ku baxa maalinta qiyaam inuu ilaahay maal idin weydiin doonto taasna ogaada mas'uul baad tihiin waa noo dhaarateen waa idin aaminsanahay yiriisoo markuu ka hadlayo khudbadiisa aad ay taabat waxaan filanayay dhibaatadii igu dhacday inuu iga saari karo oo markuu ogaado xaqa ma ahan inuu igu garbeeyo qaladaad ma ahan inuu isiiyo wax qalad ah haddaan qaldanahay in la qabto xaq waay aan qof dulminayo waxaan codsanayaa arrimahaas sidoo loo wada sheegay meelo badan oo madaxweynaha ugu horeeyo musuqmaasuqa jira dhibaatada jirta ummadda Soomaaliyeed way baaba'santay haddaad hoos u ogaan lahaydeen xafiisyada dawladda waxa ka jira
xafiisyada dowladda waxa ka jira haddaad ogaan lahaydeen haddii ilmo lagaa xiro xildhibaankeen haddii aad shaqo rabtid xildhibaankeen haddii aad minxa waxbarasho dibadda rabtid xildhibaankeen haddii aad rabtid inaad qof dulmiso even xataa xildhibaan aad ku dulmiyaysaa awoodda xildhibaanka gacanta loo geliyay war ilaahay ka baqa xildhibaanadiyo waxaa la idin dhiibay oo la idin doortay arrimahii shacabka howltaas ka weyn shakhsiyaad aad u qabatiin idin taalo ka dhaxbaxa xafiisyada dowladda iyo dhibaatada aad ku haysiin qaar idin kamid ah kulligiin ma dhahayo qaar idin kamid ah ilaahayna uga cabsada waxa la idin diray aniga waxaan u diyaar garoobay inaan runta sheego runtana ku dhinto xaqana lagama xishabo in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waxaan idin sheegayaa iska ilaaliya وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم اسك إلالي آياتهاس أنا أنت سند الشيء إلهي وحور نفتي أنا كحرم ظلمي أذن كان هاي اسكو ظلم من الدنيا الله كبقى تاسنا وإذن كوجس وجنا ذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته